warcawaale aadan u geeya toddoba ciyaala iyo hooyadood intaad ka tagtay maxaa ku gaadhay hees baan annaguna maanta qaadaynaa haddaanu nahay xisbigii mahadiye caateeye alla magana waa rabay inay kugu adkaatood cidna eersan weyde u geeya cawaale aadan toddoba ciyaala iyo hooyadood intaad ka tagtay ayaad bari dhaq waxaad aaday dhulka iyo dhul kala dee ma garanay marka waxaan ku leeyahay alla magana waan rabay inay kugu adkaateed cidna eersan weyde waa lagu furay waa laga tagay ka waran noloshaadi zero foobata wallahi bilaa cawaala been kuma sheegay habriyar foobata maxaa badaa ku galiya meel aad ka tagtaba maadaa joogay war meel aad ka tagtaba ma joogin toddoba ciyaala iyo hooyadood oo beautiful quruxda oo geedka leh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا قيمة يقدرين تيغا مدانو ميل كستو أدافها عالمك كغنو شايسي كستو دي تاواني سوا وعنا ونكسن حتى دي كولا كايغي وريد سوف قدوها كاعسون يسسكرايب تايسار دوز والبيشار قريسو لايك تناصر مركز نحن قادر كسو بكتون في الله المامين الكومنتي عافمات قلوبي فكر كايغا حقا وصيب قريسو داكتو أباباي وحي العصوب iga warayso waxaad maqashana ka fiirso hadaba saacadihii la soo dhaafay ama maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada waxaa si weyn u gilgilay hadal haynta daahir cali soo masiixiis iyo weliba ninka loo yaqaan cawaale aadan fanaanka iyo weliba fanaanada ay hadda ka hor is qabeen hadaba dad iyo badan ayaa baraha bulshada isla dhex wareegay kuwaas oo qadaa dhigay hadaba istaantan oo ahayd habreer wax ninka loo yaqaan cawaale ayaa sheegaysay tiqtiiqsi iyo waxyaabaha ay ku hadlaysay iyadoo sheegtayna inuu kaga dhaqaaqay gabadhiisii hore oo qurux badan oo weliba inay yara cidlo markii dambena waraabaha loo suneeyey lana eriyey haddaba waxa ay sheegaysaa ruux hadduu waa lagu digtaa ruux hadduu ku darnaan jiray ninka cawaale aadan ayaa hadda bacda dabada loogu tuuray isagoo mihamaamaya wadamada yurub isaga oo jaha wareersan weliba hadalla iska dhaafana kusoo qoraya komentiyada iyo weliba meelaha baraha bulshada ay ku kulanto haddaba dad iyo badan oo ka filceliyay ayaa sheegayay inay daahir cali sow iyo isaga ay xurgufyo kala dhaxaysay oo welibana ay daahir cali sow hadda gacanta ugu jirta gabadhiisii masiixiis haddaba erayada uu kusoo hadlayay ee weliba komentiyada kasoo qaadaya ayaa ahayd inuu yidhi waa inoo dagaal waxaa tahay ninaan xaajara waxba ka aqoonin haddaba dad iyo badan oo ka falcelinaya arrintaa weliba saacadii lasoo dhaafayna baraha bulshada gilgiltay hooyadan ayaa sheegaysay in habriiru tahay cawaale aadan iyadoo oo sheegtay inuu ka tegay gabadhiisii oo weliba aan aada u weynan iyo caruurtiisiiba waxa ay tiri nafsigu ma soo dhexee waxay tiri nafsigu wuu ku dambeeyaaye haddaba hadeer ayay sheegtay islaamtu inuu gebi ahaanba uu ku habsaday nafsigii uu ka galay xaaskiisa hore markii ay gabadhiisii cidla kaga dhawaaqday haddaba daahir cali sow ayaa hadda muqdisho iyo weliba soomaaliya waxa uu sawiray iyo weliba madaxtooyada soomaaliyana uu ku casuumay isagoo showna u qabanayo masiixiis isagoo oo u qaadayo marna u daarayo heestii ka meedho wixii kusoo maray haddaba dadyo badan ayaa waxay sheegayaan in ay isku diray isagu balse halka qaar ay leeyihiin iyaga ayaa isqabtay oo iskoodna u kala baxay balse ma jirto wax daahir cali sow ka dhex shaqeeyey iyo wax kala toona haddaba dadyo badan oo baraha bulshada ku legdamayay kuwaasoo weliba foosto dulandulcaysiin iyo nimadhan ay u riixaysay kuwa daahir cali sow iyo weliba kuwa kale ee masiixiis iyo weliba ninka loo yaqaano fanaanka cawaale aadan haddaba saacadihii lasoo dhaafay ama maalmihii lasoo dhaafayba baraha bulshada ayay si weyn u gilgishay iyadoo oo kuwa wax magaratada ay marba dhinac ay u riixayaan foostada dhex taala 3 qof haddaba dadyo badan oo baraha bulshada isticmaaliya ka falcelinaya ayaa sheegaya inuu daahir cali sow ka qaaday gebi ahaanba masiixiis dhawaana uu aroosi doono waa sida iyagu hadalka u dhigayaan haddaba hooyadan ayaa